taariikhda gobolkan aan xasiloonayn ee geeska Afrika waxaa ka buuxa sheekooyin dagaal, istiidyo loolan diimeed iyo faragelin shisheeye. Mid ka mid ah dhacdooyinka ku xardhan sooyaalka waa sheekada Christopher da Gama, wiilkii uu dhalay barmadeenkii caanka ahaa ee Vasco da Gama, ninkii reer Portugal ee ugu horreeyay ee sahanka u gala Hindiya. Laakiin inankiisii hanadkii uu dhalay iyo barbaarkii uu saxadda keenay waxa uu ku dhintay buuraleyda Itoobiya isaga oo dagaal kula jira halyigii Islaamiga ah Axmed Ibrahim Alqaasi Axmed Gurey. muuqaalkeena maanta waxa uu dib ugu noqon doonaa sooyaalka qarnigii 16aad. waxayna ku soo qaadanaynaa sooyaalka gaaban ee inankii uu dhalay aabihii sahaaminta ee Vasco da Gama. ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. magacaygu waa Jimcaale Daahir Bile, halkanina waa Sargaal Media. haddii aad hore noola joogtay like saar muuqaalka, haddii aad nagu cusub tahayna subscribe channelka. Christopher da Gama wuxuu dhashay qiyaasta sanadkii 1516 gudaha boqortooyada Boortaqiiska, isagoo ka dhashay qoys caan ah oo ku magac weyn ku lahaa fadaha iyo safarada cusub ee Yurub oo fidinayay xilligii loo yaqaanay casrigii sahaaminta ama Age of Exploration. aabihiis Vasco da Gama wuxuu ahaa ninkii ugu horreeyay ee Yurubi ah ee badda Mediterranean-ka ilaa Hindiya isku mara sanadkii 1498. inkasta oo uu ka noqday cidhifka koonfureed ee Afrika, haddana taasi waxay Boortaqiiska ka dhigtay awood cusub oo ka dhex muuqata Hindiya, Carabta iyo Afrika. ka dhalashadiisii qoysasku waxay ka dhigtay Christopher mid horeba loogu arkayay wiil mustaqbalka noqon kara hoggaan, laguna barbaarin jiray jawi ay ka buuxaan sheekooyinka badmareennada, dagaalada iyo ka ganacsiga adduunka cusub. markii uu yaraa wuxuu ku koray Portugal, laakiin noloshiisu ma ahayn mid degan oo keliya. waxaa lagu barbaarin jiray fahanka askarnimada iyo hoggaanka ciidan, isagoo la qabsanayay xeerarka adag ee Boortaqiiska. xilligaa oo ahayd dal doonayay inuu noqdo awoodda ugu weyn ee badaha, waxaa la baray sida loo adeegsado hubka cusub ee Yurub sida qoryaha, madaafiicda iyo farsamooyinka dagaalka. inkasta oo aan si faahfaahsan loo hayn meelaha uu carruurnimadiisa ku noolaa, haddana waxaa la ogyahay inuu ku soo barbaaray jawi diimeed iyo military, taasoo maskaxdiisa iyo dhaqankiisa ku dhisday geesinimo iyo diyaargalow dagaal oo masiixi ah. noloshiisa dhabta ah ee taariikhda gashay waxay bilaabantay sanadkii 1541, markaas oo boqortooyada Itoobiya ay fariin gargaar ah u dirtay boqortooyada Boortaqiiska. Itoobiya oo markaa uu boqor ka ahaa boqor Claudius waxay halis ugu jirtay inay gebi ahaanba uu burburiyo boqorkii weynaa ee Axmed Ibrahim Alqaasi ee Soomaalida ugu yeedhi jiray Axmed Gurey. Axmed Gurey wuxuu hogaaminayay ciidamada boqortooyadii caanka ahayd ee Cadal. wuxuu ku dhowdaaday inuu si buuxda u qabsado Itoobiya, isagoo adeegsanaya dagaal diimeed iyo ciidan isku dhaf ah oo ka koobnaa Soomaali, Carab iyo Turki. Boortaqiisku waxay aragtay in haddii Itoobiya burburto ay halis ku iman doonto saameynteeda gobolka iyo waddooyinka ganacsiga ee ay ku lahayd badda cas iyo Hindiya, taasoo ay badhaanta horeba wejiga hore ka ahayd ilaalinta diinta masiixiyadda oo ay Itoobiya astaan u ahayd xilligaas. sidaas darteed ciidamo yar oo gaar ah ayaa loo soo diray, waxaana hoggaanka loo dhiibay Christopher da Gama. Christopher iyo ciidamadiisii oo tiradoodu dhammayd qiyaastii 400 oo askari waxay ahaayeen rag aad u hubaysan oo watay qoryo iyo madaafiic casri ah. markii uu Itoobiya yimid wuxuu ku biiray ciidankii boqor Claudius. waxa uu markiiba noqday nin kalsooni badan, inkasta oo uu da'yar ahaa, wuxuuna muujiyey hoggaan iyo qorshe dagaal oo ka yaabiyey Itoobiyaanka iyo cadowgooda labadaba. waxay galeen dagaalo culus, waxaana ugu horreeyay dagaalkii Jartay, halkaas oo ciidamada da Gama ay guulo gaadheen bilowgii, inkasta iyagoo dhaawac iyo khasaare badan u geystay ciidankii Axmed Gurey. qoryaha iyo hubka cusub ee ay wateen ayaa noqday xoog weyn oo ka yaabiyey dagaalyahanada Soomaaliyeed iyo kuwii xulafada la ahaa. saamaynta dagaaladan waxay gaadhay Soomaaliya, maxaa yeelay Itoobiya iyo Cadal waxay ahaayeen deris. dagaaladooduna waxay saamayn toos ah ku yeesheen gobolka Soomaalida, iyagoo abuuray xiisado cusub, barakac iyo dagaal joogto ah. haddii aan maanta waraysan lahayn oday Soomaaliyeed oo xilligaasi noolaa, wuxuu si tafaatiran noogu sheegi lahaa saamaynta uu dagaalkaasi ku keenay dadka Soomaaliyeed. si kastaba ha ahaatee, guushii Christopher da Gama ma sii waarin. ciidamadiisu aad bay u yaraayeen marka loo eego tirada badan ee uu haystay Axmed Gurey. intii dagaaladu sii socdeen waxaa ku adkaatay helitaanka cunto, sahay iyo gargaar ciidan oo cusub. 1542 dagaalkii Wolfa ayaa noqday kii bedelay noloshiisa. dagaalkaas waxaa lagu xasuuqay inta badan ciidamadiisii uu watay Christopher da Gama, waxaana ugu dambeyntii gacanta lagu dhigay Christopher laftiisii. waxaa la hor keenay Axmed Gurey oo dalbaday inuu islaamka qaato si loo badbaadiyo noloshiisa. Christopher isagoo ka dhaxlay madax adeeg iyo kibir reer Yurub ah wuxuu diiday, wuxuuna ku adkaystay inuu ku dhiman doono sidii uu u dhashay. go'aankaas ayaa sababay in si xanuun badan loo dilo. markii uu dhintay da'diisu waxay ahayd
26 sano oo kaliya. Shadiisu waxay noqotay mid mirigo ku reebtay ciidamada Boortaqiiska iyo boqortooyada Itoobiya. Si kastaba ha ahaatee, taageeradii uu Christopher keenay waxay siisay Itoobiya waqti ay ku neefsato oo ay dib isugu abaabusho. Hal sano kadib 1543 boqor Claudius ayaa ku guuleystay inuu ka adkaado Axmed Gurey dagaalkii Weynadaga, halkaas oo Axmed Gurey laftiisa lagu dilay. Sidaas ayuu Christopher Dagama uga tegay dhaxal. Inkastoo uu ku dhintay dagaal, haddana kaalintiisu waxay ka qayb noqotay guushii ugu dambeysay ee Itoobiya ka gaadhay dagaaladii Cadal. Saamaynta sheekadiisu waxay ku faaftay dhulka Soomaalida maadaama dagaaladaasi ay qayb ka ahaayeen halgankii weynaa ee u dhexeeyay boqortooyadii caanka ahayd ee Cadal ee Soomaaliyeed iyo boqortooyadii Itoobiya ee Masiixiyada. Christopher Dagama sidaas ayuu ku yeeshay taariikh qaaban oo dhiig badan ku daatay. Wiiluu dhalay halyey badeed oo ku dhintay buuraha Itoobiya, isagoo noqday astaanta faragelinta reer Yurub ee Geeska Afrika iyo isku dhicii u dhexeeyay Muslimiinta iyo Masiixiyadda qarnigii 16aad. Ninkan aynu ka hadlaynaa hadda waa inankii uu dhalay Vasco da Gama, saamiyihii weynaa ee ugu horreeyay isla markaasina u galay safarka Hindiya. Intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa muuqaalkeena maanta. Haddii aad ka heshay muuqaalka like saar una share garee saaxiibada. Tan iyo inta aynu ku kulmi doono muuqaalada xiga, nabadiino saaxiibayaal.